haddii calaamadahan aad isku aragto beerkaagu khatar ayuu ku jiraa. Waxaan ka hadli doonaa muuqaalkani calaamado qofka uu dhaylsanayo balse halis ah haddii uusan ka taxadirin. Marka calaamadahan haddii aad isku aragto waxay muujinayaan in beerkaagu uu khatar ku jiro. Mawduuca maanta xiise ayuu leeyahay. Waxaan rajaynayaa wax badan inaad ogaan doonto oo aadan fududeysan doonin calaamadahan. Calaamada ugu horeysa waa poor night vision oo ah in aragga habeenkii uu kugu yaraado. Beerku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ka qayb qaata in la soo saaro vitamin A. Sidoo kale vitamin A waxay mas'uul ka tahay aragtida, gaar ahaan habeenka waliba muhiim ayay u tahay. Haddii marka beerka uusan si fiican u shaqaynaynin waxaa imaanaysa in vitamin A yaraato, taasna waxay keenaysaa in araggaagii daciifo, gaar ahaan habeenkii inuu daciifo. Marka haddii aad calaamadan isku aragto in habeenkii araggaaga daciifayo, beerkaaga inaad baarto waa muhiim. Qodobka labaad waa swallowing right foot oo ah in barar aad ku aragto lugaha, gaar ahaan lugta midigta ayaaba oo la sileeyahay waa u badan yahay. Haddii marka problem uu beerka ka jiro, inta badan waxay keentaa in jirku biyo aruursado, gaar ahaan in lugaha ay biyaha ku aruuraan. Tanina waxaa keeni kara in lugaha barar aad ka dareento sababtoo ah beerka ayaanan si fiican u shaqaynin. Marka beerka uusan si fiican u shaqaynaynin, lugaha ayaa barar lagu arkaa. Marka waa calaamad kale oo muujinaysa in beerkaagu halis uu ku jiro. Qodobka saddexaad waa nabaro ama finan. Inta badan beerka marka uusan shaqaynaynin waxaa imaanaya infekshanadu inay bataan, nabarada jirka ka soo baxayana ay bataan. Nabaradan iyo infekshanadan waliba nabarada inta badan waxay ku badan yihiin indhaha gaar ahaan baararka indhaha ayay ku badnaa. Marka haddii baararka indhahaaga nabaro badan iyo finan iyo waxyaabo badan aad ku aragto, si gaara waa inaad u taxadarto. Qodobka afraadna waa inta badan right side pressure. Haddii aad dareemayso in culays dhanka midigta uu kaa saaran yahay, caloosha waliba dhanka beerka uu ku yaallo, haddii aad culays ka dareento ama xanuun aad ka dareento, waxay u badan tahay in beerkaagu infection ka jiro ama uu weynaado. Marka iyadan laftigeeda fiiro gaar ah waa inaad u yeelato. Qodobka shanaad waa cracked nails ama in cidyaha ku jajabaan, ama sidoo kale aanba ku darno cirbaha laftigooda, cirbaha inay ku jexjexmaan. Marka beerku uusan si fiican u shaqaynaynin, skin problem ayaa imaanaya, maqaarka, cilada maqaarka sida in cidyaha ku jajabaan, sidoo kale in cirbuhu ku jexjexmaan. Sababtoo ah jirka waxaa ka maqan marka beerku uusan shaqaynaynin macdan muhiim ah ayaa ka maqan. Taasna marka waxay keenaysaa in cidyihiina ku jabaan, waliba ciribta ay ku soo adkaato. Qodobka lixaadna wuxuu leeyahay dark urine. Marka beerku inta badan wuxuu mas'uul ka yahay in dhiigga laga saaro wasakhda, sidoo kale waxyaabaha jirka inuu nadiifiyo ayuu mas'uul ka yahay. Haddii marka beerka uu problem ka jiro, waxyaabihii wasakhda ahaa oo jirka laga nadiifinayay waa cid ka nadiifinaysa ma jirto oo way ku harayaan. Taasna marka waxay keenaysaa in xataa dhacaamadii mataqaanaa xameetida inay qayb ka mid ah soo galaan oo bilirubintii inay kacdo. Taasna waxay keenaysaa laftigeeda in kaadidaada ay noqoto mid madow waliba jaalla ah inay noqoto. Marka taasna caafimaad ahaan waa riski. haddaa marka kaadidaada oo madow ama jaalla aad aragto, beerkaaga waa inaad si khaas ah u fiirisaa. Cuncun maqaarka ah. Haddii aad marka dareento cuncun maqaarka ah, inta badan beerka marka uusan si fiican u shaqaynaynin, sida aan hore usoo sheegnaba, bile acidkii ayaa jirka ku soo aruuraya. Taasna waxay keenaysaa in qofku dareemo cuncun maqaarka ah. Marka haddii cuncun maqaarka ah, kaadi jaalla ah, in araggaaga oo habeenkii yaraanayo, maalintiina fiican, waxyaabahaas oo dhan iyo astaamihii hore aan soo sheegnay haddii aad isku aragto, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u eegto beerkaaga, sababtoo ah beerkaaga riski ayuu ku jiraa. Waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad wax badan ka faa'iiday. Like sar muuqaalka si saaxiibo badan u gaaro. Haddii aad nagu cusub tahana ha iloobin inaad subscribe saarto si muuqaallo muhiim ah kuu soo gaaraan. Mahadsanid.